بسم الله الحمد لله waxa aynu saaka joognaa oo aad nagu soo booqateen muassasada Bilal ee Quraanka Kariimka iyo qiraa'adkiisa lagu barto muassasadan waxay ku taalaa magaalada Boorama oo ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland waxbarashada muassasadan Quraanka iyo waxyaabaha la xiriira ku saabsan waxaanu saldhig uga dhiganay oo mar walba aan ku shaqeynaa waa masaajidka gudihiisa sida iga dambeysay aad arkaysaan waxa ku bartaa arday kala duwan oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan oo dalka Itoobiya iyo Somaliland qaybaheeda kala duwan Soomaaliya ilaa Djibouti ka kala yimid waxay ku bartaan quraanka xifdigiisa iyo muraajacadiisa iyo qiraa'adkiisa iyo tasxiixiisa tunta tajwiidka culumta la xiriidha quraanka oo dhan ayay ku bartaan خير وتبتسم الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل المشرق في صحبة القرآن خير نحياه كي نحيا بخير ولنا من الأسماء خير وعلى المسمى نلتقي نور نرى بسنائه نبع نغاث بمائه ونفيد من أفيائه نمضي بدرب شيقي خير وتبتسم الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل إلهي فضلي midho badan oo aad iyo aad aan ugu diirsanay ayaa ka aflaxay ka soo baxay macallimiinta hadda maamulayaasha ka ah muassasadan waa ardaydii muassasatu Bilal ka baxay kuwa ardayda u dhiga qaar kamidana waa ragii muassasadan ka baxay ilaahay fadligii waxaan rajaynaynaa inay midho sidaas ku daba socdaan magaalo walba iyo meel walba oo ay Soomaali ay degto iyo dadka muslimiinta ba midhaheenu inuu gaadho baan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu nicmada noo sii daa'imiyo annaguna sidaan ku ballan qaadnay waxaan rajaynaynaa in meesha nuurka hidaayada ee quraanku ka baxayo aan marna laga bedelin goobta masaajidka ah ee barakaysan waxa iyaduna mudan ardayda goobtan muassasada wax ku barata waa arday ka yimaada xaafadahooga oo iska rawaxa iyo waxay iskugu jiraan arday half boardina oo maalintii oo dhan jooga waxay isugu jiraan arday habeen iyo maalinba jooga oo iyaguna degan ay isugu jiraan dhammaantood maa'idada quraanka ayay wadaagaan dhammaantoodna guul fara badan ayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala uga rajaynaynaa